لمبر تدور وأنا حوي حقوق لمبر تدور مركي أكل حوي وأنا إنسان بريء dagaalka xirfadeysan ee magacyada loogu dilayo beelaha walaalaha ah ee habiye iyo daarood oo ah beelo ka soo gudbay isdilka iyo isdhaca haddana ah kuwa isguursada oo ubad kala dhala ayaa hadda waxa koox yar ay doonaysaa in dib ay isku tusaan labada beelood ee la wada og yahay wixii ay ka soo gudbeen ma ahan wax ka cusub dhagaha shacabka Soomaaliyeed sameynta dhaqamada noocan ah oo hadda ay u bareereen dhalinyarada isticmaasha aaladda TikTok ah gaar ahaan Captain Ayub iyo Cabdiqaadir Boos qabaa'ilada habiye iyo daarood waxay iska dileen dad labada beelba u ahaa indhaha nuurkooda haddana ma oga sababta dadkaas ay isku dileen Cabdiqaadir Boos iyo Captain Ayub waxay isku haystaan aqli ahaantooda in ay dib ugu celin karaan labada beel dagaalkii sokeeye ee aan wali laga kabsan oo saameyntiisu wali nagu reeban tahay haddaba Captain Ayub iyo Cabdiqaadir Boos ayaa fariimo u muuqday yaa habiye ah iyo waliba yaa daarood ah ku soo qorayay barahooda bulshada si ay taageero aan laga warhaynin caqabadaha berito kaga imaan karto alla hortiisa oo gudbisanayeen dadka ku xiran haddaba intaas soo la isma dhihi karo waxay u marayaan maareynta dhuuntooda geesta kale culimada Soomaaliyeed ayaa ah kuwa doorkoodii ka qaadanaya joojinta dhaqamada xun ee ka socota aaladda TikTok ah haddaba maxay diintu ka qabtaa isku dirka iyo ka sameynta dhaqaalaha ciyaarahan qabaa'ilka ah haddaba waa kan Sheekh Kinyaabi oo noo sharaxaya waxa ay diintu ka qabto dadka dibadaha joogay waxa u soo diraya munkarkan dhiirigelinaya live-kan dadkan waqtiga ay luminayaan ku dhiirinaya lacagaha diyaaradaha u gadaya wallahi ku dambi baatihiin wallahi walladhi nafsu muhammadin biyadi wa ilaha muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay maarta nafsadiisa gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ku dambi baatihiin kuwan iscaaynayaad ku dambi tihiin kuwan waqtiga dhuminayaad ku dambi tihiin dadkan raggan iyo dumarkan waalan ee madaxa ukumaha ku sita burka marsaday baaquliyaha iyo digsiyada madaxa ku wataad ku dambi tihiin hadday sidan ku dhintaan wallahi aakhira macooda lidinla soo xashrinaya war waa ogahay in badan oo dibadaha Yurub iyo Ameerika ku maqan oo fisqiga iyo munkarka kuwan qoladan waalan ku caawinaya والله hooyooyinkood qaxootiyada joogan karadii baa lagu leeyahay guri baanay haysan cirka u saqaf ah dhulka u go haddaba daawade maxaa kaaga qorshe ah daawashada ciyaarahani fadlan nagu soo bir oo like saaro page-keena followna dheh si aad ugu mid noqoto kumanaanka qofood ee halkan ku xiran